wararka naga soo gaaray caasimadda Itoobiya magaalada Addis Ababa ayaa sheegaya in ninka sida weyn uga soo horjeeda maamulka ra'iisul wasaare Abiy Mohamed Tawar uu wado kacdo aan caadi ahayn isla markaasina uu u muuqdo mid soo laba kacliyay kacdoonkiisii sanadkii 2018 Tawar Mohamed oo isku qoomiyad ka soo jeeda ra'iisul wasaare Ahmed Abiy ayaa raba inuu imika ku dhaliilo ra'iisul wasaare Abiy inuu yahay mid muddo kororsi raba isla markaasina ku marmarsoonayo xanuunka sida baan uga dilaacay caalamka oo dhan isla markaana soo gaaray wadanka Itoobiya ee COVID-19 taageerayaashiisa uu kala hadlayay magaalada caasimadda Addis Ababa ayuu sheegay inay tani tahay mid aan la aqbali karin isla markaana marka la gaaro xilligii doorashada loo qorsheeyay waqtigii hore ay noqonayso inaanu wax sharciya ku fadhiyin kursiga ra'iisul wasaarenimada wixii ka dambeeyay maantana uu sugayo inuu ka dhabeeyo hadalkiisii ahaa inaan xilligan aanay qabsoomi karin haba yaraatee wax doorasho kacdoona xun oo wanaagsanin ayaa ka socda dalka Itoobiya waxa amarka ra'iisul wasaaraha iyaguna ka hor yimi qoomiyadda Tigreega oo ismaamulkoodu TPLF uu sheegay inaanu gabi ahaanba u hoggaansamaynin qaraarka ra'iisul wasaare Abiy ee ah in doorashada dib loo dhigo TPLF ayaa sheegtay inay iyagu qabsanayaan doorashooyinka maxalliga ah ee golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ee maamulkooda Mohamed Tawar ayaa ilaa imika haysta taageerada ugu badan ee qoomiyadda Oromada gaar ahaan ismaamulka Oromada ayuu ku leeyahay taageerayaasha ugu xooggan waana ninka qura ee ruuxaya ama ku haya